بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا ورك SBS oo idinkaga imaanay xarunta dhexe uu ku leeyahay magaalada Garowe. Waxa idin warami doona anigoo ah Yuusuf Maxamed Axmed Carab. Qodobada aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamid ah madaxweynihii hore dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa qasriga madaxtooyada dawladda Puntland ee Garowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani. رئيس الوزراء ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo maanta u dhoofay dalka Jordan. qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garowe waxay ka hadleen waxa ay ka filanayeen dawladda cusub. qodobada wararka dibadda aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamid ah madaxweynaha Turkiga ayaa qaadacay hadalkii Mareykanka ee inuu dalkiisa ka difaaco dagaalyahanada Kurdiyiinta. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka SBS markana